Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa maalinimo Axada, taariikhduna ay ku beegan tahay 15 bisha saddexaad sanada 2020. Qodobada xiisaha badan ee aad ku daawan doontaan xogta daasoo waxaa ka mid noqon doona Saciid Dani oo si kulul uga hadlay khilaafka kala dhexeeya dowladda Soomaaliya, Wasiir Cawad oo arin lagu tuhmo Puntland ka sheegay shirkii Garowe si adagna ula hadlay madaxweyne Dani, madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo dalka dib ugu soo laabtay, Al-Shabaab oo 4 ruux ku dilay gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad xogta daasoon ku daawan doontaan. Haddii ay tahay daawade markii kugu horeysay, fadlan subscribe inoo saar si aad u heshiin macluumaadka aan halkan soo gelino, lana sii wadaag asxaabtaada adigoona u sii share gareynaya. Waadna ku mahadsan tahay daawashadaada. Aan ku bilaabnay madaxweynaha maamul goboleedka Saciid Dani oo si kulul uga hadlay khilaafka dowladda iyo federaalka kala dhexeeya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Maxamed Dani oo khudbad ka jeediyay furitaanka shirka wadatashiga ee ka furmay magaalada Garowe ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah. Dani oo khudbadiisu ay taabanaysay dhinacyo badan ayaa wuxuu ku soo qaaday khilaafka maamulkiisa kala dhexeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, isaga oo na tilmaamay in Puntland ay xoogga saartay xalinta khilaafkaas balse dowladda ay diiday. Sidoo kale wuxuu madaxda dowladda ku eedeeyay in ay baalmareen habkii lagu heshiiyey laguna dhisay dowladda federaalka. Madaxweynaha Puntland oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku dhuftay in madaxda dowladda dhexe ay isku dayayaan inay qaataan awoodda dhan sida uu hadalka u dhigay. Waxaan xoogga saarnay in xal laga gaaro khilaafaadka u dhexeeya dowladda federaalka iyo Puntland. Waxaan ka hadalnay arrimo caqabadaha nagu ah, balse wax walba waxa ay ka socon waayeen madaxda dowladda federaalka oo hareer maray qorshihii lagu dhisay dowladda, iskuna dayay inay awoodda dhan qaataan, ayuu yiri madaxweynaha Dani. Ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay inay dib u eegi doonaan xiriirka sii xumaanaya ee haatan Puntland kala dhexeeya dowladda haddii aysan la imaan isbedel dhab ah. Shirweynaha Garowe ee maanta furmay oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay wafuud ka kala duwan oo ay qayb ka yihiin wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda deegaanada maamulkaasi. Dhanka kale, Wasiir Cawad oo arin lagu tuhmayo Puntland ka sheegay shirka Garowe si adagna ula hadlay Dani. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ka hadlayay magaca wafuudda dowladda federaalka Soomaaliya ee ka qayb galaya shirka wadatashiga Puntland ayaa ugu baaqay madaxda Puntland in tabashadooda ay u gudbiyaan si walaalnimo ah oo aan waxyeeleynin wadajirka Soomaaliya. Cawad ayaa sheegay in mararka qaar ay dareemayaan tuhun ah in Puntland ay si gooni ah wax u rabto, iyada oo sheeganaysa inay tahay hooyada federaalka Soomaaliya, hase yeeshee ay ka rajeynayaan in madaxweyne Dani uu yimaado magaalada Muqdisho. Mararka qaar waxaan dareemaynaa in Puntland ay si gooni ah wax u sheeganayso oo ay leedahay hooyadii federaalka ayaanu nahay. Hooyadu ilmaheeda ayay u roonaan jirtay. Puntland waxaa laga filayaa wax weyn oo wax tara dowladnimada Soomaaliya, ayuu yiri Wasiir Cawad oo Puntland ku bogaadiyay horumarka ay gaartay. Wasiir Cawad ayaa shirka ka sheegay in dowladda Soomaaliya ay u soo dhiibtay fariin ku aadan inay Puntland soo gudbiso cabashada ay qabto si xal looga gaaro, balse laga fiican yahay in khilaafka la gaarsiiyo meel aan waxba laga qaban karin. Madaxweynaha Puntland waxaan ka rajaynaynaa in caqabadaha ay dowladda federaalka ka tirsanayaan inay ku gudbiyaan si walaalnimo iyo wadajirka Soomaaliyeed ee aan waxyeeleyneynin. Madaxweynaha Soomaaliya annaga ayaa ka wakiil ah. Waxaan ku baaqaynaa in kalsoonida la xoojiyo, dastuurka iyo arrimaheena kale ka wada shaqeyno. Waxaan madaxda Puntland ka codsanaynaa in la xoojiyo kalsoonida oo aan idaacadaha wax la isu marin, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda. Wuxuu wasiirku sheegay in dowladda federaalka ee aad u doonayso in mar uun madaxweyne Dani uu yimaado magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo la dhiso kalsoonida wada shaqeynta dowladda federaalka iyo Puntland. Diyaarad walba oo na soo dulmarta waxaanu dhahnaa armuu saaran yahay Dani, waan daalnay sidaan kuu sugaynay. Marka madaxweyne waxaan kaa rajaynaynaa inaad Muqdisho inoogu timaado, waayo waxaan nagu jirtaa tuhun ah inaad si gooni ah wax u rabtaan, ayuu yiri Wasiir Cawad. Madaxweyne Dani ayaa khudbadiisa furitaanka shirka wadatashiga ee Puntland ku eedeeyay madaxda dowladda federaalka inay wax kasta marorsadeen oo ay awood ku muqooninayaan maamul goboleedyada, taasoo aan soconaynin sida uu yiri.
madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo dalka dib ugu soo laabtay. madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran ee dalka Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay. Shariif Sheekh Axmed ayaa waayihii dambe wuxuu ku sugnaa dalka dibadiisa oo kulamo kala duwan kula soo qaadanayay jaalidaha Soomaaliyeed ee qurbaha. Marka uu maanta dalka dib ugu soo laabtay, Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan madasha xisbiyada qaran ee dalka. intaasi kadib ayaa Shariif Sheekh Axmed waxaa loo gelbiyay aqalka uu ka degan yahay Muqdisho. Waxaa la filayaa maalmaha soo socda kulamo kala duwan inay ka bilaaban doonaan Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa dareen waxa ay ka qabtaa xisbiyada siyaasadda ee dalka maadaama la filayo dhawaan dalka inay ka dhacdo doorasho. Shabaab oo 4 ruux ku dilay gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. wararka ka imaanaya gobolka Gaarisa ee Waqooyi Bari ee Kenya ayaa sheegaya in 4 qof ay ku dhinteen kadib markii qarax lala beegsaday baabuur ambalaas ah oo xilligaasi siday bukaano. Qaraxa ayaa ka dhacay deegaanka Ijaara. dadka dhintay ayaa waxaa ku jira darawalka waday gaariga ambalaasta ah oo lagu magacaabo Maxamed Daahir, sida warbaahinta Kenya ku waramayso. Saraakiisha ammaanka ee gobolka Waqooyi Bari waxa ay sheegeen shabaab inay ka dambeeyeen qaraxa miinada ee lagu dilay dadkan. 4 ruux ee dhintay ayaa la sheegayaa 2 ka mid ah inay ahaayeen bukaan kuwaas oo saarnaan gaariga ambalaasta ah ee qaraxa miinada ay qabsatay. ammaanka gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa wuxuu ka baxay faraha, waxaana jirta amni darro weyn oo shabaab ay ka dambeeyaan.